waana magaalo Nanyuki sidoo kale waxay biisu tahay militariga Ingiriiska waa magaalo taariikheed waa Kenyaanka waxay u yaqaanaan Misho Areli kusoo dhawaada Nanyuki meeshan sidoo kale waxaa mara dhulbaraha Equator Link halkan mara Equator Link waa kan buurti Mount Kenya waa taas xagga ka muuqata soo dhawaada waxaan sameynaa social waa kana ninkaana wuxuu dhahay waxbaan inuu tusaasi loo hagaajiyo ku soo dhawaada Nanyuki Wait, Anani? Andrew, that's my name. Well, this is where the equipment passes from the east to the west, dividing the world into two. That's the northern hemisphere, and this is the southern hemisphere. Well, this is all about how the water is affected by the equator line. So, to prove it, we'll have to move to the north 20 meters, and then south 20 meters, then we finish at the equator. Because 20 meters is the minimum distance, whereby you can see the differences. So, you're welcome, we start. Thank you very much, Andrew. Let us see how it works. Yep. 20 meters. I'm sure you know the distance by yourself. Yeah. Well, this is the point. Okay, this 20 meters exactly. Yeah. I start by pouring the water in the bowl. Okay. I let the water drain back the jug through the hole. Okay. Well, the sticks, as you can see, they indicate to you what happens. Okay. So if you look at that, the sticks are rotating on this way. Clockwise. Oh, in a clockwise, yes, exactly. That's right. Okay. So as long as you are in the north, that is North America, Europe, England, Canada, Asia, Middle East, the water always behaves in a clockwise rotation. Okay. The reason behind it, it's called Coriolis effect, which is caused by the rotation of the earth. Okay. And also you will find that the further, if you look at how the water comes up, see it has some spirals. Yeah, it's still, it's rotating, So you can move to the south, you see the difference. Yeah. 20 meters down to the south. So we go 20 meters to the south. That was east side? No, north. North side, exactly. This is the equator sign there. I want to give you the exactly picture of waxaan rabaa inaan tuso exactly say u shaqeeyaan nidaamka. That's why full video aan idinka qaaday. Waa kana Andrew haddana mar kale dhulbaraha biyaha say u shaqeeyaan waa wuxuu ka sheekeynaa. South of the equator. Waxaan joognaa south dhinaca waqooyi bahalkiiga. Haddaad arkaysid biyihii waa kuwana caagadii yarka waxay u wareegayaan dhanka midigta. Anti-clockwise. Nairobi, South Africa, New Zealand, Australia, South America. That's what happens. Okay. You flush a toilet, you open the water in the sink, you open the bathroom showers, they all behave the same. Okay. Well, this time, if you look at how it comes up. Yeah, it's coming on the other way side. Anti-clockwise. Yeah. But at the equator line, there's no any rotation at all. The water just stays standstill. Okay. So let's get back. Markaan tagno dhulbaraha dhexdiisa markii hore waxa ay 20 hadaad dhankaas waqooyi baxdii dhankan bahalkii hadda marka balbartamiha istaagayna bal sawirkuna tusaan aragna haddana biyo waa bartamaha sign kaasa ku yaala oo tusaya bartamiha biyihii hadda waa ku shubay bahalkii waa u jeedaan caagadii ku riday labadii caagadood waa u jeedaan caagadii wax dhaqaaqaya male waa wada istaageen caagadii markii hore dhanka joognana waa u jeedaan okay biyihii markay ka dagaayaan biriqda markay ka imaanayaan waa kaas dhibicda yar tahay toosay u dagaayaan so that's what we do to prove that this is exactly the center of the earth. Okay. 0 degrees. Okay. Thank you very much. Meeshan waa bartamihii equator, the center of earth al dahay. Marka asxaabi you can see far there, that's Mount Kenya
viewgi Equitaga wuxuu garab maraa Mount Kenya mise wuu dhex maraaba dhexdu ka maraa u maleynaa Equitagina waa kaasaa dawladda la keenay أصحابي وجدان certificate كاس اللي يسيء إن Equitaga line كده سو استاج باشن و supported by the community area the جوكتا و certificate يبصينا يعني يجانا نقول support جريا أندرو ده باشن قاضو ده صادو تقنين برير أرسنال أنا هاي ده باشن أو آت كان وير كان حاجاتيو أرسنال أركي ده كم تيجي أرسنال ليه كتيجي ده هذا مانشستر نوا أتاسا هذا مرودي كتوا كاسا hakuna timu nyingine ya nini hakuna Manchester hapa iko Chelsea hakuna Manchester na Manchester City zimeenda hizo Nyanyuki waa magaalo ku taala degmada Laikipia ee dalkani Kenya waxayna ka xigtaa dhanka waqooyi galbeed ee buurta Mount Kenya waxaana marta wadada weyn ee A2 wadadaasoo isku xirta Ethiopia iyo Kenya iyadoo sii maraysa sida magaalooyinka Isiolo Marsabit iyo Moyale waana meesha uu ku dhamaado laanta tareenka dalkani Kenya dadka reer Kenya magaaladan waxay u yaqaanaan Misho Wareli daawadayaal magaca magaalada Nyanyuki waa eray afka Maasaiga ee Nyanyuki oo la macno isu ekaansho Nyanyuki waxa ku taal xarunta ugu weyn ee ciidanka cirka Kenya sidoo kale ciidamada Ingiriiska qaybtooda Batuuk ayay saldhig u tahay xoolo dhaqatada Maasaiga ayaa ka helay Oshre waa ciid cas ama guduudan oo ay Maasaidu marsadaan oo hidaha iyo dhaqankooda ka mid ah waa kan hadda aad sawirka ka aragtaan daawadayaal xilli ku aadan 1907 ayaa muhaajiriin British ah ay degeen Nyanyuki kuwaasoo qaar ka mid ah faracoodii weli ku nool yihiin magaalada iyo hareeraheeda dadkaas reer Ingiriis ee soo degay magaalada Nyanyuki 1907 waxaa ka mid ahay nin lagu magacaabi jiray Major Digby Tatham Water oo ahay sargaal ka tirsanay ciidankii Ingiriiska oo caan ku ahay dallad dagaal ama koofiyad oo mar walba xiran jiray waxa uu ku noolay beertiis ilaa uu ka dhintay 1993 intii lagu jiray kacdoonkii Mau Mau Digby iyo ciidan uu hogaaminay waxa ay aad ula dagaalami jireen ciidankii Mau Mau ee u dagaalamay xorriyadii dalkani Kenya waliba asagoo maalgelinay ciidankiisa magaalada Nyanyuki waxay caan ku tahay beero aad u waaweyn oo dalka ka soo bax loo dhoofiyo dunida dacaladeeda sidoo kale dhul daaqsimeedyo ilaalinta duurjoogta magaalada dalxiis weeye waxaana imaada dadka doonaya inay fuulaan buurta Mount Kenya Nyanyuki waxa bartanka ka mara dhul baraha dhankeeda waqooyi Eberhal meelaheeda dalxiiska waxaa ka mid ah sida Mount Kenya National Park Olpejeta Conservancy Lewa Wildlife Conservancy iyo kuwa kale oo badan magaalada waxaa labada dhinac ka mara laba webi oo lagu kala magacaabo Nyanyuki River iyo Likil River magaalada sidoo kale waxay qabtaa airport oo u jira masaafo dhan 6 kilomitir iyo bar isagoo saaran highway-ga sidoo kale meelaheeda ganacsiga ee waaweyn ama moolalka loo yaqaan waxaa ka mid ah sida moolka Siani Mall Sida Mall iyo Quickmart Mall waad ku mahadsantihiin daawashadiina maadaama aad dhamaysateen videoga aad baan idinka mahadcelinaynaa mar kale videoyaal badan oo xiiso leh oo ku saabsan dalka Kenya iyo meelo badan oo dunida dacaladeeda ku xirnoo channelkeena Mr. Mire
أصحابي أتبين دين سلام عيا وأنا كم هتسنتين إنتين فيديو قد دعوتي بليز هدات كه شيء فيديو قا فضلا لا شير قرأ أصحاب هذا هدان وقالنا إن نلجوك تدنا سبسكرايب تنوصر أو كسو بيرفم الكريمير magaalada Nyanyuki aan rabaa inaan wax yar idin ka taabto magaalada Soomaali badan baa degan Muslim badan baa degan waa magaalada dalxiis meel badan oo dalxiisna way qabtaayo de buurtan Mount Kenya ku taal marka waana meeshu tareenka ku dhamaada Kenya misho reeli ayuu yaqaanaan dadka reer Kenya ku soo dhawaada de salaadii la gaaray marka masaajidkiyaan casara la gaaray meeshaan salaad casar ku tukanaa insha Allah de halkaas Nairobi aan u sii noqonaynaa waa ku mahadsantiin inaan la joogtaan